su-aasha Mustafa waxay tacadigan la sheego ruuxa dumarka in lagu sameeyaa muxuu yahay tacadigu waa xadgudub rag iyo dumar mid kastaba ha ahaadee shareecadeenu waxay xaaraantinimaysay in dadka lagu xadgudbo naftooda iyo maalkooda iyo sharaftooda inta oo dhanba qofka bani'aadamkii wixii xorriyad iyo xuquuq u leeyahay in lagu xadgudbaa waa xaaraan cidda ugu weyn ama shayga ugu weyn u ilaaliyayna waa islaamka marka dumarkuun bay ka hadlaan gaaladu dumarka in lagu xadgudbaana maadaama ay jilicsan yihiin waa xaaraan ragga in lagu xadgudbaana waa xaaraan marka qof waliba xorriyad buu leeyahay karaam buu leeyahay xaq buu leeyahay in loo ilaaliyo weeye markuu nabi maxamed sii dardaarmay sallallahu alayhi wasallam hajjatul wadaa sanadii tobnaad markuu xajiyo carafa iyo mina iyo muslimka kala hadlayu sagootiyayna waxa uu lahaa inna dimaa'akum wa amwaalakum wa a'raadakum alaykum haram dad yahow sharaftiina iyo maalkiina iyo dhiigiina ina ku xadgudubtaan